hay'adda khayriga ee Samtragdis oo kamid ah hay'adaha khayriga ee ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo bini'aadantinimada isla markaasina bil kasta oo Ramadaan ka sameysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer afurinta dadka masaakiinta ayaa waxay magaalada Burco ugu sameysay 600 oo ruux afurin xarunta SOS magaalada Burco afurintan ayaa waxa bixisay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta waxaana socotaa bisha oo dhan iyadoo ay ka faa'iideystaan dadka masaakiinta aan haysan afurado Sheikh Maxamed Cabdi Al-Hashimi oo maamulaha hay'adda khayriga ee Samtragdis iyo sidoo kale Macallin Ibrahim Shukri Ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'addan khayriga ee Samtrag ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen barnaamijkan khayriga ee afurinta masaakiinta kala duwan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نتقدم نحن هيئة سمتراغ للتطوير الإنساني ونيابة عن شعب أرض الصومال بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي قام ويقوم بتقديم موائد الإفطار الرمضانية لإخوانهم في أرض الصومال وذلك في كل عام والآن وبالتحديد في مدينة برعو وقريتي بهل وقرية عيلهلي وذلك في كل عام وبهذه المناسبة الكريمة نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى وشيوخها الكرام لما يقدمونه من عون إنساني عظيم لإخوانهم في أرض الصومال. نسأل الله أن يتقبل من شعب الإمارات هذه المكرمة وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمحضل إنه كل مية قرون كان SOS halkaas oo aanu ku qabanno sanad kasta afuro uguna sameeyno dadka xaafadda ee baahan. Ilaahay baa mahad leh. dadkaas oo dad aad u fara badan waa dad ilaa 800 700 600 marba in bayihiin meelo badan baa lagu qabtaa sida bohol oo kale ceel helay marka sanad kasta waa afuro la soo dhiibo waxaanu mahadnaqaynaa dadka muxsiniinta ee soo dhiibay ilaahay ha ka abaaliyo iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo hadiyadan ama afuradan u soo dhiibtay dadka muslimiinta ee walaalahooda ee reer Burco waxaan halkan maanta isugu nimid afurtan oo inoo soo dhiibtay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka muslimiinta la soo baxday waxaan leenahay horta Allah jazaakum Allahu khayr waxaan halkan ku qaybinaa bil kasta oo Ramadaan afurtan oo dad fara badan oo baahan oo aan afurba helaynin ay ka faa'iideystaan xaafadda Maxamed Cali sida ay qoladii ugu horeysay madaxda gobolka ee hay'adda Imaaraadka bisha cas ay hore u sheegtay waxa lagu qabtaa meelo fara badan bohol ceel la helay iyo meelo kale waxaan leenahay hay'adaas aad baan idin soo dhaweynaynaa annaguna haddaan nahay shaqaale hoosaadkii waxaan idinku hambaleynaynaa afurtaas aad soo dhiibteen waanu gaarsiinay dadkii baahnaa ayaa u soo dhiibteen Allahu jazaakum Allahu khayr.